maanta oo tahay maalin salaasa 18 bisha koobaad 2022 waxa kulan iskugu yimi in guddiga jaamacadda degmada Sheekh gacanta ku haysta iyo golaha deegaanka degmada Sheekh in shirkaas oo ka qabsoomay xogka dowladda hoose una qabsoomay jawi fiican lagana tashanayay geedi socodka iyo yigaleelida jaamacadda degmada Sheekh ee Sansad halkaas oo la iska shaafinayay tabashooyin ay xildhibaanada qaar ka mid ah hawada mariyeen ama warbaahinta mariyeen guddiga gacanta ku haysa guddiga wana shaafisay wixii madmadow ahaa ay goluhu tirsanayeen way ka shaafisay wixii madmadow ahaa ay xildhibaanada qaar tirsanayeen way ka shaafisay anaguna waan ku qanacnay halka waxa ku soo afgoay oo lagu soo afmeeray wax kasta oo khilaafaad ahaa oo hagardaamo ku ahaa oo dib u dhac ku ahaa oo nusqaan ku ahaa geedi socodka jaamacadda degmada Sheekh maanta laga bilaabo waxa mid loo yahay meelna lagu soo wada jeedaa xildhibaanada golaha deegaanka iyo guddiga jaamacadda gacanta ku haysaba inay isku aragtiyihiin in wax khilaaf jirin barta lagu soo afmeeray la dhameeyay hadda wixii ka dambeeyana gacmaha la isku qabsan doono si jaamacadda ay tabagal lahayd maanta waxaanu shirkan isugu nimi golaha deegaanka guddiga jaamacadda xogaha dowladda hoose ganacsade Cali Xaashi inaanu iska laab xaadano arrimo ku saabsanaa jaamacadda iyo khilaafaad soo yar kala dhaxgalay oo yar madmadow aanu muxuu ahaa labadeeda dhinacbaan inaan iska laab xaadano iska aragno taasna waxay noo qabsay si wacan noo qabsoontay waanu iska wareysanay waanu isqancinay wixii khilaafaadaan muxuu ahaa ayaanu iska dhignay waxaanu isu qancinay in horumarkaas gacmaha la isku qabsado wixii arrimaha dhacay muxuu khilaafaad iyo hadal muxuu midiyahana marina waxa hayday aanu kuusha muxuu ku dhamaysanay insha Allah maanta wixii ka dambeeyana si wanaagsan oo wada jira aanu wada shaqeyno oo bisha ay tahay 18 halkan waxaan iskugu nimi hadii aanu nahay xildhibaanada iyo guddidii jaamacadda gacanta ku haysay ee wada dhismaheeda iyo horumarkeedana u xaydatayna maalin dhawaad khilaafkiina soo kala dhaxgalay wax badan ma jirin waxa weeye maanta isku mid baan nahay hadalkii midiyaha ka baxay aan maalintii dhinaxaan ee boorjiis baan ka baxay guddida maanta halkan aanu ku shirnay anagii guddida iyo xildhibaanada golaha deegaanka Sheekh waxa weeyaan kulay anagu golo cusub aan ahayn jaamacadduna waxay soo socotay waqti fara badan bay soo socotay wax waraa kama ahayn laakiin kulay khilaafkiina soo dhaxgalay haddaan nahay xildhibaanada iyo guddida jaamacadda maanta si wanaagsan baan u dhameynay ma sha Allah haddii la ka dhigo kulay wixii horumarina ee ay nooga baahan yihiin haddaan nahay golaha deegaankana guddida jaamacaddu markasta oo iskarab taagayna maanta bisha ay tahay 18 bisha koowaad 2022 waxaanu kulan la qaadanay guddida jaamacadda degmada Sheekh khaladaadkii raayana soo kala dhaxgalay haddaan nahay xildhibaanada golaha deegaanka degmada Sheekh wixii mistake xaggayga ka yimi waanu qaadanay garowshiyo xaaliyo boodatis baanu ka bixinay halkan waxaanu ku fadhinaa golihii deegaanka ee cusbaa ee degmada Sheekh iyo guddidii jaamacadda degmada Sheekh bulshadu waxay maqashay khilaafaad yar oo u dhaxeeyay weligeedna hawl hadii la wada hayo kulli lagama waayo buuq habeenkan caawa oo ay bishu tahay 19 ku wareegayso waxaan wada fadhinaa hoolkii dawladda hoose waanaanu dhammaysanay si qurux badan oo wada jira bulshadii degmada Sheekh iyo Somaliland ba ee soo eegaysay waxaanu imika leenahay jaamacaddii waa halkeedii ninkii wax noo qabanaya iyo kii wax nasiinaya iyo kii nala soo talinayaba golii deegaanka way cusbaayeeno dhalinyarana way ahaynana dad waaweyn baanu hayno isafgaranay caawo ilaahay waxaan ku baryayaa laba talaabo tiiro inta kadib waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa maayirka degmada Sheekh
ismaaciil xabeeb oo runtii kulankan ka soo shaqeeyey soo diyaariyey isu keenay guddidii jaamacadda ku howlanayd dhismaheeda iyo golihii deegaanka ee degmada sheekh aad iyo aad buu ku mahadsan yahay halkan haddii aanu dhaafo soomaalidu dhaqan bay leedahay weli somalilan dhaqan bay leedahay soo jireena had iyo jeer garow ereyga garowga la yidhaha wax ku weyn haddii garow laysa siiyo garow waa geelsiin baa la yidhi xubnihii ka midka ahaa golaha deegaanka ee waxoogaa warbaahinta noo mariyey hadala mar hadday xaal naga siiyeen waanu guddoobanay waana sidii dhaqanku ahaa annana laab xaadhan baanu ku qaadanay wixii dambena waxaanu kala tashanaynaa oo hawsha nala wadi doonta guddida waxaan leeyahay golaha deegaanka waanu isku duubnaan doonaa insha allah kulamo intan ka badan oo berriba dhacayana waanu wada lahaan doonaa bishu ay tahay 18 shirka halkan aan iyo kulanka halkan ka dhacay runtii uu soo agaasimay maayarka sheekh runtii waxa ka soo baxay midho qiimo badan u leh jaamacadda sheekh iyo dhismaheeda iyo mustaqbalkeeda runtii waxa muuqanaysa maalmahan dhawaato xoogaa hadallo yaryar oo miidiyaha marmaray runtii in bulshada aanu tusno in la saxay si fiicanna la isaga shaafiyey sideedabana marka ay shaqa socoto ee horumar jiro ayaa ay soo baxaan kala duwanaansho iyo in la kala afkaar duwanaado waxa lagu kala afkaar duwanaana runtii ma ahayn in xumaani jirto laakiin sidana loo qaban karaa iyo sidana loo qaban karaa baa laga yaabaa in lagu kala aragti duwanaa arrintaasina runtii si wanaagsan oo guulabay isaga dhamaatay mahadsanyiin waxaan kaloo aad iyo aad ugu mahadnaqayaa guddidan jaamacadda oo iyagu in badan ku howlanaa howlo badanna ka soo mareen oona ka warhaynay sida ay ula soo dabaasheen iyo sida ay u soo xusheenna ay warbixintoodiina siiyeen waxaan jecelahay aad baan iyagana u mahadnaqayaa waxaa leeyahay dhammaanteenba xildhibaan iyo maamul iyo guddida jaamacaddaba iyo aqoon-yahanka magaaladaba dhammaanteenba waxaynu isla waafaqnay isla qaadanay inaynu jaamacadda hirgelino